hay'adda Camud Foundation oo wali wada barnaamijka sanadlaha ee 2 milyan minis oo loogu gurmanayo dadka danyarta ee Soomaaliland ayaa gobolka Sanaag ka daafurtay in deeq raashin la gaarsiiyo 1,000 qoys oo gobolkaasi Sanaag ku nool si ay bisha barakaysan ay rabadaan deeqda raashinka u isticmaalaan. Deegaanada Faraguul, Sincar, Masla, Hulul iyo Godheli oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa hay'adda Camud Foundation deeqda raashinka gaarsiisay. deeqdan oo ka kooban bariis, sonkor, saliid iyo timir, taasi oo dadkaasi danyarta u isticmaali doonaan raashinkaasi bisha rabadaan. Cabdiqani Maxamed Axmed oo ah wakiilka hay'adda Camud Foundation u qaabilsan gobolada bariga Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay. hay'adda Camud Foundation maanta waxa ay joogtaa gobolka Sanaag oo ay ka daahfurayso barnaamijkii 2 milyan milis iyadoo ugu talagashay gobolka Sanaag 1,000 qoys oo raashin ah oo ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. 1,000 qoys maanta waxa ugu horeysa aanu joognaa magaalada Faraguul iyo Sincar oo 400 oo qoys aanu ka qaybinano. halkan hadda aan joogno waa magaalada Sincar. waxa ay leeyihiin labada magaalo min 200 oo qoys oo raashin ah oo ay hay'adda Camud Foundation ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. runtii xilligan adag mas'uuliyiinta iyo dadka deegaanadaasi hay'adda Camud Foundation deeqda raashinka gaarsiisay ayaa ugu mahadceliyay deeqdan raashinka ee la soo gaarsiiyay. taasatan tuulooyinka Sincar iyo Faraguul waxaa noo yimi raashin dhan 400 oo qoys. Camud Foundation wayna soo gaarsiisay raashinkii samafalka ahaa si fiican oo nabadgelyo buu ku fulay arintaasi. waana aad iyo aadna uga mahadcelinaynaa. waa halkan ku qaybinaya raashin ka kooban noocyadiisa kala duwan oo raashin qiimo badan ah. hay'adda Camud Foundation oo hay'ad khayriya ah waxaan uga mahadnaqaynaa raashinkan qiimaha badan leh ay ku soo beegtay xilligii ku habboonaa oo ay siisay dadkii u baahnaa nuglaa. aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa, waanu ku faraxsannahay. markhaati baanu ka nahay inay raashinkaasi si sharaf leh oo karaamo leh oo gobonimo leh dadkaasina u qaybsadeen. khayraasiyo hay'adda Camud Foundation waxayna 400 oo qoys raashinkoodii ayayna soo gaarsiisay. maanta waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Masle oo ka mid ah gobolka Sanaag ahaan degmada Elafweyn. waxaa maanta lagu qaybinayaa raashin ka yimi Camud Foundation oo 2 milyan ah oo ay ka waday gobolka Sanaag. runtii waan uga mahadcelinaynaa gobolka Sanaag ahaan hawsha ay ka wado. waxa insha Allah iyana maanta lagu sii qaybin doonaa oo qaybtu ka socon doontaa Galyaqa. waxa xigi doona meesha la yiraahdo Hulul. saas ay u socon doontaa ilaa iyo garada iyo jiideeda. aad iyo aad baan intii lagu qaybiyay baan uga mahadcelinaynaa hay'adda Camud Foundation oo aad aragtaan raashinka 100 qoys ah ee halka hortayada ay yaala oo ay u keentay deegaankan Masle. waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo xilli runtii waqtigu adag yahay oo abaar adag jirto rabadaana ay soo gashay dadkuna iska yarjicsan yahay oo xoolihiina aan laga iibsan oo baahidu badan tahay ayay ku soo beegantay. hay'adda Camud waxayna soo gaarsiisay 100 qoys raashinkood. waxa weeyaan waa ku mahadsan yihiin, annana waa ka guddoonay. deegaanku waa Masle. halka waxaan ku keenay 100 reer raashinkood waanu ka guddoomanay. waxaanuna uga mahadcelinaynaa wixii keenay. waa Maxamed Suuta, telefishinka qaranka Soomaaliland, Elafweyn.